halkani waa alxaqiiqa. bismi illaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. halkani waa alxaqiiqa. fallida barnaamijkeennu maanta wuxuu noqonayaa wasiirkeenna khaarajiya oo wasaaraddii ugu muhiimsaneed xilligan aynu joogna xasaasiga ah ee cusub oo su'aalo maruu guddi hortegay baarlamanka ah ay weydiiyeen uu weydiinayo ninka la yidhaha xildhibaan cabdinaasir yuusuf cismaan qodax ayaan daawaday mar dhoweyto. maalin dhoweydna waxaan arkay oon fogeyn isagoo nin ambasadoora la fadhiya oo sawirkiisa iyo siduu u fadhiyo dee aad ka garanayso inuu yahay qof meeshan loo magacaabay aan shaqa ku lahayn ama ehelkeeda aan lahayn. waxaa loo sawirnaa inan kale oo aan filayo inuu agaasimo guud iyo ka yahay wasaaradda oo ay ka muuqato ma garanaysaa dee brotocoolkii mas-uuliyadda ay ka muuqato. ninka iminka markaan dhegaystay su-aaluu weydiiyey xildhibaan qodax. su-aalaha horta waxaan doonayaa inaan idinka yara aan idin naqashiiyo su-aalahii la weydiinayey dabeeto aan isdul taago wixii iiga muuqday aan qodobeeyo oon isdul taago. bal horta ila yar dhegeysta. ku jirta awdal state maxaad ka aaminsantahay? okay, anigu cabdiraxmaan ahaan meelan awdal state ku taageeray iyo meelan awdal state kaga mid noqday inta aan noolaa intaan siyaasadda ku jiray recordka kuma jirto. horta recordka kuma jirto, it does not exist. qofka haddayna recordkiisaba ku jirinna maxaad ka aaminsantahay su-aashaasi? sharaxaad baad u maadsantahay. waaye MOU-da horta اعتراف inaan helno ma waxaan meesha u joogno, albaab walba waan garaacnay intaasoo sanadood waan ogaa. waa runtaa waan kugu raacsanahayo waa layneer leexiyo cid baa tidhi xaggan uu ku xidhan yahay axmed. waa fikiro ay dee liidis qaateen, dembi ma laha. waayo qofka bini aadamkiiyo inuu wax isku dayo markaad wax raadin sidii albaab walba waad garaacaysa, si kasta waad isku dayeysa. dee madhaa waxaa la yidhi xagganay ka dhowdahay oo kuwan haddaa wada hadashaan kuwan baad dee ku heshiin kartaa inaad kala go'daan. waana kugu raacsanahayo meel arrintaasi may gaadhin wayna xeejisay. waxaad tidhi madaxweynihii hadda muuse biixi cabdi isaga oo wixii frustrated ka noqday buu is yidhi go-aan adag qaado oo baddaa ictiraaf ku bedelo. ictiraaf waa kaan wada raadinayna, aniguba kaan maanta halkaa u joogo weyaan. laakiin ma aaminsani inaan meel tago go-aan soo qaatan warqad soo seexo wax dowladda. waa dhegaysateen wasiirka su-aalihii la weydiinayey. wasiirka anoo su-aalihiisa isu taagi doona. horta su-aalaha ugu muhiimsan la weydiiye waxaa ahayd awdal state maxaad ka aaminsantay baa lagu yiri. jawaabtuna waxay ahayd inuu naa waxaan ka aaminsanahay qalad ama waxaan ka aaminsanahay sax, sidaa iyo sidaana uu sababeeyo. qalad iyo saxba uu ka aaminsan yahay muu yeelin, uu ka meeraystay. qodaxna dib ugu celino moodha su-aasha ka jawaab kama jawaabin. waxaana halkaa ka muuqata wixii la sheegayay wax ka jiraan. ilaa qaaran bixiyuu ka ahaa marka ugu yari qaaran bixiyuu ka ahaa. halkaa laaxin baa ku jira. su-aasha kama jawaabin. su-aasha labaad ee aanu ka jawaabin waxay ahayd MOU-ga maxaad ka aaminsantay baa layidhi. wuu ka meeraystay iyadana. MOU-ga ninkani wuu ka soo horjeeda oo duubanta cajaladihiisa shir weyn ayuu ku qabtay, soomaali oo dhan ugu qabtay Minnesota, oo waxay doonaan soomaalidii kale ay ku hadlayaan way kaga soo horjeedaan badda. baddeenu biici ma ahay leeyihin ayuu ku qabtay. yacni nin ka soo horjeeda markaa ayuu ahaa. markii iminka la weydiiyey qodax weydiinayey wuxuu odhanayaa MOU-ga kama soo horjeedine in waxaan ma garanaysaa dee ummadda lagala tashado oo loo soo bandhigo ayay ahayd ee inuu nin wax iska soo saxeexdo may ahayn. yacni ninkaasi waxaa muuqata
inaanu waxaan loo diray shaqadiisii baahayn inaanu dowladnimada xitaa dhagaha ka maqal dhagaha kala socon bad ayaa muuqata iyo shuruucdan iyo waxa qofku xaq u leeyahay iyo sida loo kala leeyahay shaqada inaanu fahamsanayn baa inoo muuqata markan uu leeyahay in ummadda la soo hordhigaabay ahayd iyo in ummadda lagala tashaabay ahayd waayo ummadda lagala tashanaya waa goorma waa marka heshiisku dhaco ayaa heshiiska lasoo hordhigaya labada gole ee baarlamaanka la isku raacdo guurtida iyo wakiilada ah oo gudoomiyaha golaha guurtida uu sheergaraynayo ama uu gudoominayo weliba 164 xildhibaan oo 22 markaasay ka doodayaan wixii qalada ka saarayaan cod aqlabiyada lagu kala saarayo hal dheeriya laakiin cidda inay MU soo saxiixdo xaq u leeyahay waa madaxweynaha isna madaxweynaha xaq u lahaa ee dastuurku siinayay buu ka dhigayaa wax nin iska soo walwalaaqday nin ayuu ka dhigay madaxweynaha halka waxa ka muuqata jaahilnimo iyo aqoon darro aanu ka haysan meesha waxaan loo dartay madaxweynuhu markii uu MU soo saxiixay bulshada dhan la shiray culimadu la shiray ganacsatada la shiray wuxuu ku yiri dan baan u arkaa sidan ka warrama uu ka talageliyay qanciyo dantaas anagu teen u arkaa ninka dan kale u arkow meeshana inagoo soo taagan baa la soo bixiyo farmaajo la siiyay maanta xasan sheekh inuu bixiyaa buu doonaya deynta cid kale bixin leedina waan bixin ku bedelan waxa nagu qalas ninkii taladasan hayaa wax ka duwan hayo isoo hordhig buuro deyn soo hordhigaya ma jiro maanta nin soo hordhigi kara ma jiro way dhacday badeenu biic ma aha Soomaaliya oo dhaman lahayd culimada Soomaaliyeed qaar sheeganaya baa lahaa lagu duulo Soomaaliland badii bay iibiyeen waxa ka dambeysay ee waynu ogeyn ee Djibouti la lahayd tujaro la bariyay Soomaaliya maxay madaxweynaheeda xasanna uu dekada la bariyay bad way dhacday taa macnaheedu waxa weeyaan in inagu uu duulimaad leenagu ah ninkani nakuwa duulimaadka dalka ku ah ee badeenu biic ma aha kala ha qurbaha ee lacagta ku bixinayay ee xafladaha ku qabanayay buu kamid aha maantana isagoo aan aqoon ka muuqan ayuu ina leeyahay in lagala tashadaabe in baarlamaanka lagala tashadaabe in wax la iska soo qorqorto ma ahayn haddana Ethiopia fuluri Ethiopia اعتراف بين ميسينين بين بوشيغيا إثيوبيا إم كذا سي اعتراف نسيسي أي كمر خاطفيان يوسف جراديو بس بقول كنا لوتري سفارة دي بكر لو قاضي وإم بس لو رشيدي محيدا سفارة دي أن دولتها كلا أجنبي كلها هاين عندما دي لوتر بريش دولتها كلا أفريقيا كهابين وكم ده هاينه عندما دي لوتر بريه شيشيرو أي نحمرين دول سفارة Soomaaliland laga dhisay Ethiopia nasiisay waxa loo wixii اعتراف كلها دنبay ficliyan u sameysay ficliyan safiir buuxa ay dalkeenu soo magacaawday oo laga wada qeyliyay waxa soo dhanbu xaqraya oo horteena yaalo oo aanu beenayn karin halka ka muuqata wasaaradii ugu muhiimsanayd in qof aan u qalmin oo aan اعتراف كمان تلاقينا ولا دجالنا مية Soomaali oo dhami ka loobin garanaysa Mareykan ee boqolaalka iyo kubaanku kun ee dollar lagu bixinayo ninkii ka dabaalan la tartamada inaan la keenin meesha inoo muuqato in aan اعتراف la doonin baa inoo muuqato markii ka soo horjeeday laynoogu yiri doonay اعتراafkii inaan اعتراف la doonin baa la inoo sheegay ninkaas maalintii dhaweyd ee ambassadorka la shirayay waxa ka muuqatay qaabkiisa iyo brotokoolkiisa inaanu meel la dawladnimo xitaa telefishinada aanu daawan inanka kale la joogo wasaaradda ka tirtanaana waxa ka muuqatay inuu majuur ahaa oo si qaabsan uu fadhiyo sawirkiisa la arkayay isagana waxaad moodaysay islaamuhu markay iswareysanayaan xaafada isugu yimaadeen lay aaminaay barigaan inanka weyn urkiisa lahaa ee Axmed aanu naalay sugumaha ayaa halka udurga dhaca oo nabarkii doogtiisii ayaan kaleeshu markay weer tacdeed ku laato doogtu qabata tabtoodii islaamu isu wareysan jiray ayuu dhuunta uga jiray ninka ajnabiga ah oo
markaasuu lagu taray iska marmaray sidii ciyaalka xadhiggii lagu dhegaysanayay telefoonka ee dhagaal gelinayay dadka noocaasa marka laynoo keenayo lama waayo cid laynoo keeno oo shaqada inoo qabato weliba reerkooda laga soo heli lahaa jibraaciilkaasi ee laga soo heli lahaa waxaan la doonayn wixii aynu doonaynay dowladda la sameeyena waa in ictisaamo oo waddanka ka soo horjeedo ujeeddo kale leh iyo in ninkaa iyo la midka ahoo ayagoo ictisaamna aan ahayn dee ma garanaysaa meesha lagu buuxinayo oo lagaga hor joogsanayo dadkii wax inoo qaban lahaa ee aqoonteeda lahaa ee kartideeda lahaa marka ninkani xitaa waxaad sodhanaysaa siduu isu jijabinayo fitba maaha ayaad sodhanaysaa marka waxaan leeyahay halkaa waxay nooga soo baxay waraysiga wasaaraddii ugu weyneyd ee maanta ictiraafka kambalkay noo saaran ka loobin garayn leeda ka shaqayn leyd in la nasaqay oo la frisgareeyey oo ay nasaqan tahay baa noo muuqata la fadhiisiyey baraf taasina halka kale ee ergiga ninka laga dhigay maxayday haddana magacii ergiga wadahadallada soomaaliya iyo somaliland laga reebay laga dhigay nin xasan sheekh bilaa ballan ugu geli karo oo gacantiisa koowaad oo xamar markuu tago ballan la'aan xasan sheekh ugu geli kara in laga dhigay somalilanday wax ku qaado waxa hortaada yaala ninka hadalladiisa waxaa ku jirtay oo maxayday dee wax lala yaabo ah dowladdii hore ee uu MAU-geeda uu leeyahay waxba kama ogin iyo waxba kalama soconno dee way ku wareejisay dokumentiskii ay heshay oo dhan dowladda cabdiraxmaan cirre uu ninkana ka midka yahay wasaaraddii khaarijigana wuu u qaabilsan yahay dowladdii faylkii iyo galkii uu MAU-gu lahaana wuxuu yaallaa xafiiska cirre ee la wareegay dowladnimadii markan uu leeyahay sidii qof suuqa jooga ama makhaayad jooga uu leeyahay waxba kama ogin ilaa maanta ma ogin dee waxay ceeb ku tahay dowladnimada waxay ceeb ku tahay wasaaradda khaarijigu lagu magacaabay waxay ceeb ku tahay dowladdii cirre faylka la wareegtay wuxuu u hadlayaa sidii qof suuqa jooga ama islaan dee maxay meherad yar kaga haysta magaalada oo dee laga wareysanayo dowladnimo aanan garanayn waa su'aalo u baahan in la isweydiiyo oo mucaarid baayo weli dowladdii waddanka haysta wuxuu haystaa muuse biixi maxayday ma waxbaan loo sheegin oo wasaaradda khaarijiga ayaan waxba loo sheegin oo dowladdiisi wax la wareegtaana u sheegin waa su'aalo in la isweydiiyo u baahan halkaa waxa kay nooga muuqataa dowladda laynoo magacaabay inay geelkiis tahay geelkiiska dee ninkii garanaya wuu garanaya ka aan garanayna dadka ha weydiiya baan leeyahay